14 bishii September Brana Barmula waxaa lagu hordilay xaaskiisa Amrutta waxaana lagu eedeeyay inay ceeb u soo jiideen qoysaska ay ka soo jeedaan lamaanahan isguursaday Amrutta oo ahayd xaaska Dilay Saygeyga oo warbaahinta la hadashay ayaa waxay shaaca ka qaaday inuu aabaheedu si bareer u Dilay Saygeyga isla markaasina aanu doonaynin inuu inantiisa u guursado Amrutta iyo Brana waxa uu jacaylkoodu ka soo bilaabmay dugsiga sare oo ku yaala Mirlaguda oo ah magaalo yar oo ku taala koonfurta dalkaasi India markasta waan isticmaalan jirnay telefoonka gacanta ayaan aad uga wada hadli jirnay kadibna waan isticmaalnay sidaas ayaa ay tiri iyadoo dhoola cadeynaysa isla markaasina indhaheega ka yaacayso ilmaha fara badan Amrutta oo ay daadeedu tahay 22 jir ayaa ka dhalatay qoys maalqabeen ah halka Brani oo 24 jir ahna uu ka dhashay qoys danyar ah Amrutta ayaa ninkeeda guursatay iyadoo waalidkeedu ay ka soo horjeedaan guurkeeda isla markaasina aanay aqbalin waxaana haweeneyda ay sheegtay in waqti xadirkan ay leedahay uur 5 bilood ah oo isla markaasina ay rajeynaysaa in nolosha farxad ay ku noolaan doonto balse aanay marnaba ayna niyadeeda gelin in farxadeedu ay murugo ku dambeyn doonto isla markaasina waa behed gacantiisa ku dili doono Saygeeda Aabahay ayaa Dilay Saygeyga waayo kama uusan dhalanin qoys lacag leh sida iyada oo kale ayaa ay Amrutta waxana waa Aabahay u dilay kaliya inuu inantiisa u guursado nin ka soo jeeda qoys faqiir ah ama bas noloshoodu ay dabaqada hoose tahay isla markaasna waxa Amrutta abeed ku andacoonayeen inay magac xumo ku tahay inuu inantiisa u guursado wiil faqiir ah dabaqada ay kaga jiraan wadankaasi India iyo soo kale hantidooda waxana wadagani qorsheeyay dilka wiilkaasi oo soo dagow yahay ma jirto xog rasmi ah oo arrimahan laga hadlay balse hal warbixin oo laga qoray ayaa sheegaysa in boqolaal qof lagu dilo dalkaasi India sanad kasta iyadoo loo aaneynayo inay ka dhagaadeen waalidiintooda oo ka soo horjeeda qofka nolosha la wadaagayaan qoysas badan oo ku nool wadankaasi India waxa ay door bidaan in caruurtooda ay guursadaan qof ay isku dabaqad yihiin soo kalena heerka hantidooda ama bas lacagtooda ay isleeg tahay booliska ayaa xabsiga u taxaabay Amrutta aabaheed adeerkeed iyo soo kale 3 qof oo lagu eedeeyay inay dilkaasi ay si wadar u geysteen waxana dilka wiilkani lagu kharash gareeyay lacag gaadhaysa 1 bilyan 4 kun oo dollarka Mareykanka ka hor intii aan la dilin wiilkaasi waxana lacagtaasi qaatay 3 qof ee waqti xadirkan la xidhay Amrutta aabaheed iyo adeerkeed ma aha dhacdadani markii ugu horeysay ay ka dhacdo wadankaasi India waxaana tani sababaysa dabaqadaha kala duwan ee ka kooban tahay nolosha wadankaasi India oo intiisa badan u kala qaybsama dabaqada hoose dabaqada dhexe iyo dabaqada sare waxaana iska caado noqotay inaanay dabaqadina ayna dabaqad kale u talaabi karin isla markaasna aanay kala guursan karin ama bas goobaha waxbarashada waana meel isku mid ah wax ka wada baran karin soo kala basaska iyo goobaha transportation kana meel isku mid ah wax ka wada raaci karin waxa soo kala jirtaan cisbitaalada ay kala leeyihiin dabaqadaha isla markaasna ay jiraan cisbitaalo u qaasa dabaqada sare dabaqada dhexe iyo soo kala dabaqada hoose waxayna soo kala sheegtay in weerarkan uu ahaa kii afraad ee lagu damacsanaa in lagu dilo wiilkaasi Amrutta Saygeeda ahaa balse uu noqday kii noloshiisa gabagabada u ahaa waxaana soo kale warbaahinta u sheegtay in marar kale la isku dayay sidii loo khaarijin lahaa wiilkaasi balse uu ka badbaaday balse ugu dambeyn dilkii la damacsanaa iyo soo kale qorshihii loo soo maleegay uu ku geeriyooday madaxa booliiska gobolkaasi ay dhacdadani ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in Amrutta aabaheedu uu qirtay inuu ka dambeeyay dilka wiilka uu sadagow yahay isla markaasna uu muddo dheer ku taamayay inuu mar uu gacantiisa ku khaarijin doono si uu gabi ahaan u tirtiro ceebta u soo hoyatay qoyskiisa iyo soo kala dabaqada sare uu ka tirsan yahay Amrutta waxay sheegtay inay qorsheynayeen inay u wareegaan dalkaasi Canada balse ay ka baaqdeen kadib markii ay ogaatay inay uur 5 bilood ay leedahay taasina ay sababtay inay sii joogaan dalkooda India balse waxa halkaasi gabaanba ku soo afjarantay noloshii farxadda lahayd ee ka dhaxaysay lamaanahaasi waqtiga dheer xiriirka jacaylku ka soo dhaxeeyay Amrutta ayaa sheegtay inay waalidkeeda ay weysiisay inay uur u leedahay wiilkaasi isla markaasna waqti xadirkan ay marayso 5 bilood balse waalidkeedu waa uu ka dhagaadeeyay arintaasi waxaanay kula taliyeen in gabaanba ilmahaas iska soo xaaqdo Amrutta maana aqbalin dalabkaasi ka soo yeedhay waalidkeeda waana ay ka dhagaadeegtay ugu dambeeyna waxay taasi sababtay in Saygeeda gabi ahaanba nolosha adduunka laga tirtiro iyaduna ay ku noolaato murugada adduunka waxaana dhacdadani ka mid noqonaysa dhacdooyinka kala duwan ee ka dhaca wadankaasi India oo ay sababayso dabaqadaha kala duwan ee wadankaasi ka jira